ka qaado shirkadda Samsung Soomaaliya telefoon Samsung nooci aad doonto oo wata damaanad 2 sano ah kuna darso hadii uu ka ciladoobo si lacag la'aan ah ayaa lagugu cilad bixinaya ama lagaaga bedelaya Samsung Soomaaliya hiba eeba ku siiya habeen la iskama qaade Hodan Hospital waa heerkii u sareeyo dalkeena laga hirgeliyay Hodan Hospital waa isbitaalka nuuciisu yahay kii ugu horeeyay laga furay dalkeena waana standard caalami ah Hodan Hospital waa hoyga kulmiyaha doorka caafimaadka dal iyo dibadba Hodan Hospital Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega Gandhi Specialist Hospital daweynta haweenka iyo daryeelka ubadkeena isaga looga dambeeya Gandhi waa la diyaar hab casri ah iyo dhaawac la'aan furista tubooyinka xirme ee haweenka baaris daweyn iyo qalliinba sidoo kale waa isbitaal daryeela carruurta dhiciska aan bila dhamaysan si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan aryaadaha kalamaanay hayay ka soo kacay hayay aad maqli jirteen bariga bishaaro war Abdullah bishaaro khayr noo sheeg aryaadaha Soomaaliya waa laga badshay hadaad maqli jirteen bariga ayada 3 iyo eber ku badisay war Abdullah cid kale iyo taas uga badisay yaa weeye aryaa wadamada Afrika kuwa ugu waaweyn mid kamid ah Rwanda la yiraahday ka badisay waliba afkay uga roogsata badin waa ka badan tahay arintaanu ka badinay bareer goolkii u hananay billahi intaan awoodno guusheenu ma baaqan doonto aryaa bashiiro war ma hayside bariga Rwanda waxa lagu yiri barta ciyaaraha barta war kalamaanay waxa la yiri waqtigiisa jacaylkiisa ma waafaqsana oo nin walba warkiisu wax tar nooga dhigaya war bashiiro adigaan war hayna waxa kale la yiri hawsha dadka loo hayo hadalka ugu weyn wadka iyo jacaylkuna way weerarayaan aan maqli jira war waxa kale la yiri runtu waxay dhibtaa been ninkii weel ka buuxsaday la iskuma wareeriyo waxaan waran ka daabnayne xageed hay u sileediin waa dhamaystiray wabadiga darajoow war waxa ka tagtay nimba waayihiisa ilaa meel ku waabo waynu kala fogaane miyaan ku waramay wali ariya adigaan war hayna waxa la yiri waayaha adduunka iyo taariikhda ka weyn waxa loo wakiishaa ninkii waaya aragahe jacayl aan lagu laawadin waqtigaaga yuu lumin war kalamaanay war ma haysina waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaa ninkii odaga ahaa ee galkacay xaaskiisu ku dishay gabadha yartahayd oo awoowaha u ahaa uba hadda maxkamaddu ku dhaxayla dalaaqay warkaaga dhaxgelina sanad xabsi iyo $500 baa lagu xukumay xaaskiisina dil toogashaha lagu xukumay hadda qoyskaasu falka ay geysteen maanta maxkamaddu waajibkooda ka marisay shacabka galkacyana si fiican bay u soo dhaweeyeen sababtoo waa tii hore loo yiri dilaa dil baa u dambeeya laakiin reer galkacyo dil kuma cusbay dilkan foosha xun bay ka caroodeen sida xun oo saqiirka loo dilayna way la yaabeen warba qof kasta Soomaaliya wax dilaa hadii sida dil loogu fulin lahaa dad badan oo Soomaaliya bilaash isaga dilay Ilaahay ba wadkooda haya waa kala badbaadi lahaayeen war kalamaanay idinka warhayna Soomaalidu meesha hore ma joogto gobol kastana qofkii qof dil hore laga toogtaa koow reer koonfur galbeed qofkii qof dil qoraxdu inay u dhacdo uma ogola casir dheeraana inta la xukumo hore laga toogtaa abud waaqna waa ogeedeen inta qof oo lagu toogtay gurceel hadda waa arkayseen tii ka dhacday kaalgacayna maanta u dambeysay waa u jeedin hadda dadka hore lagu eedeyn jiray inay wax iska dilaan oo naftaba qiiban la lahayn hadayba qofkii qof dil hore ka tooganayaan kuwa kale isdilay maxay sugayaan naftu qaalibay noo noqotayo ninkii dilan nin kale naftu waayaya miyay yiraahdeen warnaagta gabadha dishay maanta aan la xukumayo bashiir ma falan tahay aryaadaha war ma haysina arintu askari iyo shacab iyo shabaab waa dhaaftayo mugdha waxa laga baqaa xildhibaan tiirka taagan in la arko sababtoo ah dagaalkii wala weyn ka dhacayo foolxumada badan reebay oo xataa dad in la jarjaro la guba keenay xildhibaanna ka dambeeyo huriha ayaa la yiri lacag iyo qarash iyo guubaabana waa ku bixiyeen la yiri fidnada dhanna iyo ka horseed u ahaa la yiri maxkamadda ciidamaduna waxay ka codsatay guddoonka baarlamaanka xildhibaanadaas in xasaanada laga qaado cadaka kadibna in shuuta la horgeey doonaan ka cabsahaya arbo hadda maxkamaddu ciidanka ba way xukuntaa xildhibaanaduna iyagoo xasaasiyadooda watamay xukunto waranu waxaan la yaabay dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran laguma dhaqmo sababtoo ah qofka haduu dambi faraha kula jira xasaasiyad ma laha baa la yiri xildhibaanadana warkoodii baa yaal meel kasta dadka iyagoo galac lehna waa la hayaa ayagoo rasaas u qaybinayana waa la hayaa wax badan baan dacwoonay ahna noo soo dacwooday ayagoo dhahayana waa la hayaa ninku waa fiyooba oo dagaalku ku jira ayagoo dhahayana waa la hayaa hadda waa loo jeeday farahoodu dhiig leeyihiin xasaasiyadu maxay sheegaysaa aryaadaha samigay Cabdullana mugaas waxa uu yiri
dabkaad afuuftay derbigow kaduunshay dad ma loo qabsaa dabkaad afuuftay derbigow kaduunshay dad ma loo qabsaa warbow hadda cabdillow meesha toogashay maraysa adiguna derbi dib hayaad ka hadlaysaa war bashiiroo soo dadku dhima maayaan derbi hadduu soo dumo warbow hadda marka horeba ma cagafta la hor istaago war bashiiro adiga war heen reerdayn ilaa waxay dhaheen idaacad laga qaylqayliya la iska yeeli maayo waxaan hubaysana waa soo qaadanaynaa sababtoo warka idaacadaha cid naga dhagaysataa ma jirto oo hadda jacfar dagaalka kale miyuu leeyahay war aniga horta waa yaabeen reedaadiina nabaday ahaayeene waxa ka qaylasiinaya ma siyaasad cusuba war kalamaanay war ma haysiine madaxweyne farmaajo soo u yimid dad badan oo ka dhex hadlayaa la yidhi oo hadda reerdayn ila qayra warkiisa ma dhagansa waayeen war kalamaanay war ma haysiina wasiiru dawlaha gaashaandhigu wuxuu yidhi shabaab iyo dawladda maahana cid kale xamar hub ku qaadan kadhaa ma jidho warba ah obow ma ka dhaba war bashiiro inta maxamuud caydiid kuu joogo kuwa la mid ah hadda la weyn mahayo aryadaha kalamaanay war ma haysiina muqdisho waxaa laga furay shirka culummada sanadkii 3aad mawduuca looga hadlaayana waxaa la yidhi waxaa waaye midnimada ummadda iyo shareecada islaamku waxa ay ka qabto obow horta culimmadu inay iyagu midoobaan ma ogol yihiin aryaa warkaan hayga dhex gelina qaybaha culummadoo dhan shirkan waa ka qayb galeenaa la yidhi madaxda dawladoo madaxweynuhu u sarreeyana waa ka qayb galeen war wasiirka gaashaandhiga axmed macali fiqiyo oo culummada la hadla wuxuu yidhi muxaadaro saacad soconaysa wakhtigii liiska dhegaysan jiray lama joogo dadka maanta jirana 2 daqiiqa ka badan wax looma sheegi karo marka waxaan kula talinayaa culummada Soomaaliyeed TikTok inay isticmaalaan fariimo gaagaabanna inay u soo gudbiyaan bulshada markii gabdho isruuxaya TikTok soo galaana wadaad ummadda wacdinay fariintiisa in laga helana muhiim waaye obow hadana fiqi wasiirka diinta oo qafta laga dhigay oo roobo in xagee la geeyay aryadaha warkaan hayga dhex gelinaya shirka culummadu maalmo socoha ahaa la yidhi go'aamo masiirka ummadda ku saabsanaana ka soo baxayaa la yidhi war cabdullah culummada ay inta hubkooda qaateen khawaarijta la dirirayaan obow qaar culimmada kamid ah khawaarijta dhalay baa la yiri oo haday caasiyoobeen culummada ku eedeynaysa aryadaha xabad leydin ma sheegi karee ayaantan dad cadawa oo culummada ayaa soo baxaa la yidhi hadda gacmo shisheeye inay ka dambeeyaanna waa la tuhmaa wadaad culummada ka tirsanoo warramayna wuxuu yidhi culummada in la soo dhaafayaa macallimiintii dugsiyada loo soo dhigtay sababtoo ah qaar la leeyahay ilmay kufsadeenaan nadartu dhahnay waxaasna dad abaabulanoo fidno wada inay ka dambeeyaanaan aaminsannahay hadda culummada waxaa la rabaa inay inya baaraan fidno wadayaasha soo saaraan war cabdullah hadda bow adigaan war hayna baadari la taliyo waa Donald Trump ilmihii uu kufsaday baa la hor keenay baa la yiri kadibna wuu qirtaa la yiri wax la qarin karo arrintii way dhaaftay xabsigaana hadda loo taxaabay oo Trump waxyaalo lagu eedan jiray masaga kula taliyay war adigaan warayna Trump wuxuu yiri Soomaalida Minnesota joogto waa tarxiilaya war hadda bow taas ilaahan Umar baan ka yeelayn war kala maanay idinka war hayna shirka aqoonsiga qaranka lagu qabtay Muqdisho obow hadda Soomaaliland baa la aqoonsaday aryadaha ma qaran kale oo mugaan aqoonsi u fadhiyaa jiray war kala maanay idinka falan Soomaaliland war kama haysiine madaxweyne cirra wuxuu xilkii ka qaaday baa la yiri gudoomiyaha gobolka Gabiley iyo taliyay ciidanka booliska war kala maanay war maysiin jilaagii hindiga dalamadar waa dhintaa la yiri haye dab ma la qabadsiyo ma la jururuciyay war hadda Cabdullah wiilkan yarkay dalamadar ma soo gaarine yuu ka dhageystay war kala maanay dad falan baatiin la idamana warrami kare shirka aqoonsiga qaranka wax badan baa looga hadlay walina waa u socday lama soo gabangabayn wasiirada ka soo qayb galana waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee waqooyi bari waana markii ugu horeysay aan shirarka federaalka ka soo qayb galu yiri waqooyi barina waa maamulka saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya uu yiri obow hadda labada ka yar ma sheegay war bashiiro waxaan islaaya hadii la weydii lahay waa Puntland iyo Somaliland inuu dhihi lahay aryaataas la yaab ma laho hadda ka horba madaxweyne dani wuxuu yiri Somaliland iyo galmudugaan deris lanahay waqooyi barina saasoo maha uga saaray arbow hadda Cabdullah taa ilaahay wax ka oranaya bashiiro goorba ilaahay adoo shibka leeyahay Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega